magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Dilcow waxaan hees dareen la wadaagay degmada Axmed Jab marka heestan hadda qaaday waxay tahay anigu qosayso dareenkayga marka qofkii dhalinyarada wax dareema uu dareemi kara qof walba dhibkiisa uu ka turjumi kara ma dhawaan dhacda waxay u dhacday 2009ka bishii 6/25 bay ugu dhacday wallahi kulleeba waxay ii daliishadeen ayaga baa ogaayeen anigu inaan dhalinyarada baan iska ahaa ardaya oo markaas xaafadiisa jooga halka degmada daynii laban deganaa laakiin waxa ka bari jiray degmadan oo hawlwadaag waxaan rabaa inaan Cabdiqaadir Sacbar asaasiisan dhamaantiinba Instagram-kaygu igala soo xiriiray markaan arkay gacantiisii midig iyo gacantiisii iyo lugtiisii bidix oo markaan qiirooday iyo markii aan dareemay inaan xamar ay u baahan tahay nabad iyo nolol Sacbar asaasiya gudoomiyaasha iyo xildhibaaniinta oo dhammaan waana ninkii aan Instagram-ka markuu igala soo xiriiray oo sheekooyinka iyo qisooyinka wixii ku dhacay oo wixii diijeysbaad ka magaaladan mar labaad Sacbar Gacan walaalkiisa mid baan ogahay walaaltinimo sinjiyo dareen iyo Soomaalinimo xuduud ma laha waa ninkii baray Sacbar Gacan Cabdiqaadir عاونا هسويني قضية
ku soo dhaweynayaa